Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Samooda isku soo laabasho wanaagsan. Soona dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale oo aad u xiiso badan. Muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay mid ka mid ah dambiyadihii ugu doqonsanaa abid. Balse inteena si toos ugu guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga. Taylor wuxuu ku dhashay magaalada Los Angeles 9kii bishii November 1992, asigoo aad u yar ayuuna aabihiisa dhintay. Dhimashada aabihiisa kadibna hooyadiisa ayaa go'aansatay inay geyso goobaha lagu xanaaneeyo carruurta, balse ayeeyadiisa oo arrintaa u cunto muhiisay ayaa tiri, Taylor aniga ayuu ila noolaanayaa ee idinka faraha uun ka qaada. Muddo markii uu Taylor ayeeyadii la noolaa waxay geysay iskuul, balse Taylor wuxuu ahaa dadka nuuca iskuulka sida aadka u neceb. Markii iskuulka la joogayna Taylor wuxuu ahaa arday seegseeg ah, yacni arday aan dadaalin. Haddii ay ayeeyadii canaanto wuxuu wax akhrin jiray amaba uu dadaali jiray 10%. Mar walibaana wuxuu raadin jiray marmarsiimadii uu si gebi ahaanba kaga hari lahaa iskuulka. Wuxuu Taylor sidaasiba usii necbaaday iskuulka. Sanado kadib waxaa u suurta gashay inuu ka haro iskuulka. Markii uu iskuulka ka harayna ayeeyadii sidii ay ka filaysay ma uusan noqon, ee wuxuu isugu soo aruuray kaliya inuu dheelo game. 9kiiba game luu ku fooraaraa. Sida caadiga ahina waxa markii aad muddo ku dhex jirto waxaad u yeelanaysaa khibrad. Taylorna waxay hibaayadiisu noqotay gamekaasi oo kaliya. Sidoo kalena Taylor ma uusan lahayn saaxiibo, marka laga reebo saaxiibada ay gameriska isla yihiin, kuwaas laftooduna waxay isku barteen gamekaasi uu dheelo oo kaliya. Wuxuu waqtigaas guraa waxaa maalin dhacda Taylor asigoo jiifa in hal mar ay albaabka soo jebiyaan koox ciidan ah, waxayna hubkii ay wateen ku wada taageen Taylor, iyagoona ku dhaheen halkeed geysay walaalkaagii aad dishay. Taylor oo hadalkoodii aad uga argagaxsan ayaa dhahay, wax walaal oo ila dhashay ma jira ee ciwaanka isku hubiya. Kadib markii ay ciidanka baareen guriga ayay Taylor ku dhaheen, naga raali noqo, warbixin qaldan ayaa nala soo siiyay. Taylorna durbadii wuxuu gartay arrinkan inay ka dambeeyaan gameriska kale, oo gameriska badi waxay isku sameeyaan wax loo yaqaano swatting. oo waa maxay swatting? Ereyga swatting macnihiisu waa argagax gelin, ama warbixin qaldan ayaa inta ciidanka la siiyo ayay dhankaaga soo aadayaan, ama adigoo leef ku jira amaba howl maalmeedkaaga iskaga jira ayaa mid ka mid ah gameriska kale wacaya booliska, isagoona ku dhahaya booliska, waxaan dilay waalidkayga ama walaalahay, ayaga ayaana markii hore iga caraysiiyey ee iga soo gaara. Ama intuu booliska waca ayuu dhahayaa, qof ayaan dilay, haddana waxaan rabaa inaan isdilo ee iga soo gaaray, haddii kale waan isdilayaa. Intaasi kadibna booliska ayaa tagaya goobtii uu tilmaamay qofkii soo wacay. Marka qofka loo imaa isagoo live ku jirana waxay gameriska kale u qoslayaan sida qof loo sheegay hadal qosol ama shactara ah. Intaasi kadibna markii Taylor lagu sameeyay swatting wuxuu go'aansaday inuu barto swattingka, oo qofka swatarka ahi markii uu wacayo booliska waxaa looga baahan yahay inuu qariyo lambarkiisa iyo locationkiisa ama meesha uu joogo. Taylorna wuxuu muddo ku dhawaad sanad baranayay swattingka. Markii uu Taylor isubsadayna inuu si fiican u bartay swattingka ayuu maalin go'aansaday inuu swatting ku sameeyo mid ka mid ah gameriska ay aad ku xifaaltamaan. Wuxuu maalin yarkii xifaaltanka kala dhexeeyay isagoo live ku jiro u wacay booliska. Wuxuu u sheegay inuu dilay waalidkiisa, haddii aysan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu imaanna uu asiga isdili doono. Markii Taylor ciwaankiisa la weydiiyeyna wuxuu boolisku sheegay ciwaanka yarkii gamerka ahaa oo xifaaltanka adag kala dhexeeyay. Booliskana waxay si dhaqsiyo ku gaareen guriga yarkii gamerka ahaa, ayagoona albaabka u soo jebiyeen asigoo live ku jira, waxayna hubkii ay wateen ku taageen yarkii gamerka ahaa, waxayna ku dhaheen aaway meedka waalidiintaada. Inta uu yarkani gamerka ahina cabsanayay, booliskana ay cadaadis ku saarayeen inuu sheego meesha uu geeyay meedka waalidiintiisa. Taylor wuxuu u faraxsanaa si aan innaba caadi ahayn, yacni wixiisa farxad lama dhihi karin, farxad way dhaafeen. waxa kaliya aynu dhihi karno waa inuu ku raaxaysanayay inuu swatting ku sameeyo gameriska kale. Kadib markii uu Taylor yarkaasi swattingka ku sameeyay wuxuu aad ula dhacay qaabka falcelinta qofkaasi uu noqonayo iyo cabsida ka muuqata qofka. Taylor intaas oo kaliya kumuusan ekeen swattingka ee xitaa wuxuu swatting ku sameey jiray deriskiisa. Xariifkanina maadaama aysan jirin wax kale uu ka fikiro, wuxuu akoonti ka samaystay Twitterka. akoontigaasina wuxuu kusoo qori jiray dadka uu swattingka ku sameeyo. xitaa xariifkan wuxuu gaaray ilaa heer uu dadka ku dhaho ila soo xiriira, qofka aad doontiin ayaa swatting idinkugu sameynaya. xariifkan asigoo ay sidaas ugu kala kacsan tahay ayaa maalin waxaa dhacday asigoo ayeeyadiis TV la daawanaya inuu ku dhaho, ayeeye bal ka waran haddii aad joojiyo showgan TV ka socda. ayeeyadii oo hadalka wiilkeeda kaftan ula muuqda ayaa tiri, sideed u joojinay milkiilaha TV-ga miyaa tahay? Kii ayeeyadii intaasi dhahday ayuu galay qolkiisa. wax yar kadibna ayeeyadii iyadoo TV-gii daawanaysa ayuu barnaamijkii hawada ka baxay. isla daqiiqadiiba Taylor oo qoslaya ayaa ayeeyadii ku dhahay, barnaamijkii aad TV-ga ka daawanaysa aniga amarkayga ayaa lagu joojiyey. ayeeyadii oo la yaaba hadaladiisa ayaa tiri,
sidee u joojisay? Taylor ayaana ayeeyadii ugu jawaabay, waxaan wacay booliiska waxaana u sheegay in dhismaha TV-ga aan ku rakibay bam si dhaqsi haddii aadan ku gaarin dhismaha iyo dadka ku jira bamka ayaa ku qarxaya. Ayeeyadii oo nafteeda u naxaysa ayaa la xiriirtay booliiska iyadoona u sheegtay in qofka soo wacay ee dhahay bam ayaa ku rakibay dhismaha TV-ga uu yahay wiilkeeda Taylor. Ayeeyadii oo hadalkeeda sii wadata ayaana booliiska u sheegtay ciwaanka gurigeeda. Daqiiqado yar kadibna waxaa yimaadeen booliiska waxayna xireen Taylor. Maalmo kadibna waxaa la soo saaray maxkamadda waxaana lagu xukumay 2 sano iyo 8 bilood oo xabsiya, balse muddo kadib habdhaqankiisa oo wanaagsanaaday awgii ayaa xukunka looga khafiifiyey, sidaasi ayaana lagu soo fasaxay. Markii uu Taylor xabsiga kasoo baxayna wuxuu aaday guriga dhanka ayeeyadii. Markii uu gambalaalka albaabka riixayna ayeeyadii ayaa dhahday, ma doonayo inaad ila noolaato ee iga tag, wuuna kasoo tagay. Xariifkani Taylor ahina wuxuu raadis u galay inuu helo hooy uu ku gamo amaba uu seexdo. Kadib markii uu Taylor maalmo darbi jiif ahaa, wuxuu maalin arkay mid ka mid ah goobaha kombiyuutarada loogu isticmaalo si bilaash ah. Wuu galay wuxuuna la xiriiray saaxiibadiisa uu internetka ku lahaa, asigoona u sheegay dhibta heysata. Dhalinyaradii ayaa dabareen iyagoona siiyay meel uu seexdo iyo kombiyuutar uu isticmaalo. Maalmo kadibna Taylor wuxuu dib u bilaabay inuu sameeyo iswaatinkii. Taylorna markaan waxa uu kala kacsan akoonkii uu Twitterka ku lahaa, xitaa dadka intay soo wacdaan ayay dhahayaan qofkan iswaatin inoogu sameey, lacag ayayna Taylor sii jireen dadka. Asna qofkii uu lacag ku qaatay ayuu ciidan u dirayaa, yacni shaqo ayuu sidaas ka dhigtay. Shaqo kale aan iswaatinkaasi ka ahaynna ma uu qabto. Balse maalin waxaa dhacday in Taylor uu la soo xiriiro wiil dhalinyaro ah. Wiilkii ayaana Taylor ka codsaday in macalinkiisa uu ku sameeyo iswaatin si uusan iskuulka u imaanin maalintaasi. Taylor ayaana ku jawaabay, macalin iska dhaafay xitaa iskuulka dham ayaa bixin karaa. Wiilkii dhalinyarada ah ayaa yidhi wayba kasii fiican tahay albaabada isugu dhufay iskuulka. Taylor oo markanina waxaan lacag ahayn u muuqan ayaa booliiska wacay, asigoona u sheegay in iskuulka uu ku rakibay bam daqiiqado kooban gudahoodna haddii aysan ku gaarin in bamkaasi uu qarxi doono. Booliiskana isla markiiba waxay tageen iskuulka iyagoona banaanka uga soo saaray macalimiintii iyo ardaydiiba. Muddo saacadaha ay markii iskuulka baarayeen booliiska waxay xaqiiqsadeen in warbixin qaldan la soo siiyey. Mid ka mid ah askarta oo la shaacin magaciisa ayaa go'aansaday inuu si shakhsiyan u baaro qofka mar waliba warbixinta qaldan soo gudbiya. Maadaama askarigan aan magaciisa la shaacin waxaan ula bixi doonaa Michael oo si shakhsiyan mas'uuliyadda isaga saaray inuu soo baaro qofka mar waliba warbixinta qaldan u soo gudbiya booliiska. Michael ayaana qortay lambarka laga soo wacay ciidanka asigoona u diray fariin iska caadiya. Taylor markanina wuxuu ahaa waaweynka xitaa ma uusan qarin jirin lambarka askarta uu ka wacayo, kaliya wuxuu qarin jiray locationka uu joogo. Taylorna markii uu fariintii arkay wuxuu ugu jawaabay, waad qaldan tahay saaxiib, lambarkiina waxaa loogu talagalay in warbixin been abuur ah loogu gudbiyo askarta. Michael oon filin in xitaa loo soo jawaabi doono ayaa fariintii arkay wuxuuna dhahay, niyow khatar ayaa tahay, sidee waxaan u samaysaa? Kulley ammaan ayuu si aan caadi ahayn ugu bilbilay. Taylor oo markanina fan iyo isxayisiin ka tahay ayaa ku dhahay Michael, waxaan akoonta ku leeyahay Twitterka ee halkaas igala soco. Michael ayaa ku farxay sida fudud uu ninkani intaan u macluumaada uga helay, wuxuuna Taylor baray gabar askariyad ah, asigoona Taylor u sheegay in gabartani ay ka mid tahay asxaabtiisa. Sidaas ayuuna ku baray Taylor oo wax shakiya qabin ayaa gabartii la sheekaystay. Gabartanina waxay Taylor u dirtay dhowr sawir oo isla iyada ah si ay ugu soo jiidato. Maalmo kadibna waxay dhahday gabadhii askariyada ahayd, aniga sawiradeeda waad haysaa ee aadna sawiradaada ii soo dir. Taylor isla markiiba lamuusan daahin sawirka ee wuxuu u diray sawir selfie ah, maadaama sawirkaasina uusan si fiican wejigiisa u muuqan. Gabadhii askariyada ahayd ayaa dhahday, war nin qaangaar ayaan ku moodayay, waa maxay sida tan? Taylor durbadiiba sawir kale oo wejigiisa si fiican loo arki kara ayuu gabartii u diray, asigoona u sheegay in mar hore uu gaaray da'da qaangaarka. Waana intaasi inta laga rabay. Hadda Taylor waxaa laga hayaa macluumaad kooban, hadda kaliya waxaa dhiman in la ogaado meesha uu Los Angeles ka joogo. Balse habeenkii ku xigay ayaa waxaa la tijaabinayay gantaal. Michael ayaana sawiro intuu gantaalkii ka qaaday u diray Taylor, caawa gantaalka ayaa la tijaabinayaa, dadka dhanna way sawirayaan, adiga sawirka mala gaartaa? Taylor isla markiiba wuxuu sawir ka qaaday gantaalkii asigoona u diray Michael. Markii uu arkay sawirka wuxuu isla markiiba gartay meesha uu Taylor ka joogo Los Angeles. Balse intaan Taylor lasoo qaban waxaa dhacday in maalin uu wiil gamer la soo xiriiro Taylor. Wiilkii gamerkaana wuxuu u sheegay Taylor in ay isku dhacsan yihiin wiil kale oo gamer ah, haddana uu rabo in wiilkaasi uu ku sameeyo iswaatin. Taylor oo lacagtiisa la siiyay ayaa booliiska wacay asigoona dhahay, waxaa isfahan waana dhexmaray aniga iyo aabahay, waana dilay aabahay, waxaana guriga ku rusheeyay basiin, haddii aad ii imaan weysaanna guriga ayaan gubayaa. Booliiska isla markiiba waa ay baxeen waxayna imaadeen ciwaankii loo tilmaamay, balse dhibka jira ayaa ahaa ciwaanka askarta loo tilmaamay wiilka gamerka ah hadda ma degana. Markii hore waa uu deganaa balse hadda waa uu ka guuray. Isla waqtigaasina ciwaanka askarta loo tilmaamay waxaa deganaa qoys ka kooban 4 qofood, waxayna kala ahaayeen Andrew oo ah aabaha qoyska iyo xaaskiisa iyo cunug yar ee Dylan iyo gabar uu abti u ahaa. Markii ay booliiska imaadeen ciwaankii loo tilmaamay waxay gudaha u galeen guriga iyagoona hubkii ay wateen ku taageen Andrew. Intii la buubuuqayayna mid ka mid ah askarta ayaa waxaa ka fakatay xabadiina waxay ku dhacday Andrew asigoo dhaawac ah. Gabartii uu abti
abtiga ahaa la dhahay kasoo tilaabsa abtiga ayaa xaggeena imaad. gabartiina iyadoo nafteedu waa cabsanaysa ayay kasoo tilaabsatay abtigeed oo dhaabac ah. xaaskiisana sidoo kale ayaa la dhahay, balse markii ay booliska gudaha guriga baareen ayaa xaqiiqsaday in warbixin qaldan lasoo siiyey. Andrewna muddo ku dhawaad 20 daqiiqo ayuu ku horsakaraaday askarta, ugu dambeyntiina wuu dhintay. dhacdadan ayaa lagu baahiyey TV-yada. Taylorna akoonkiisa uu Twitter ku lahaa wuxuu kusoo baahiyey falanqaynta dhacdadii, wuxuuna dembiga oo idil dusha ka saaray askarta, asigoona ku andacoonayay in askarta aysan waxba hubsan, dadkana ay iska dilaan. Michael ayaana arkay qormadii uu Taylor kusoo qoray Twitter-ka iyo dhacdadii uu TV-ga ka daawanayay. Michael maadaama uu xilligaas magaalada ka maqnaa, wuxuu la soo xiriiray askarta asigoona u diray sawiradii Taylor. askartiina durbadii waxay aqoonsadeen Taylor maadaama mar hore loo soo xiray, waa ayna soo xireen. intaasi kadibna waxaa dhacday in gabadhii loo qasbay abtigeed oo dhaawacay inay ka tilaabsato ay shoog ka qaado dhimashada abtigeeda. ugu dambeyntiina gabartii way isdishay. markii ay gabadhii isdishayna qofkii ugu horeeyay oo meedkeeda arka wuxuu ahaa boyfriendigeeda ama saaxiibkeedan markii uu xaqiiqsaday inay dhimatay saaxiibadiisa asna wuu isdilay. ilaa aqra ka heri maayo camal. Taylorna waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah sanadka markii uu ahaa 2019. insha allahna waxaa lasoo dayn doonaa sanadka 2039 weliba asigoo 45 jir ah. ninkii askariga ah ee xabadda kaga fakatayna Andrew waxay maxkamadda sheegtay inuusan wax dembiya lahayn, shaqadiisana uu sii wadan karo. ugu dambeyntiina waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. fadlan haddii uu ku cajabiyey muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga.